saddex qaab oo aad online lacag ugu samayn karto adigoo isticmaalaya computerkaaga soo dhawaada muuqaalka inta aan guda galin waxaan ku codsanayaa videogan noola gareystaan sidoo kale noo sii share gareystaan si dad badan uga faa'iideystaan soo dhawaada qaabka koowaad ee aan isleeyahay waa fantastic lacag waa laga samayn karaa waxa weeye inaad iibiso barnaamijyada loo yaqaan plannerska iyo timetable sheetska laga imika adina waxaan joogaa Canva dad timaado oo aad ku search gareyso waxa la yiraahdo planners hadda wuxuu isoo saaray 10,000 oo result waxaa sameynaysaa kali plannerska mid ku qanciya dooranaysa kaasoo kala inta furaya kadib waxaan dhigi doonaa edit ka bacdina waxaan sameyn doonaa inaan bedelo kali waxa u baahan tahay Canva inaad tagto planner ku qorto kadibna waxaan af Soomaali ka dhig waxyaabaha qaar bedel kadib PDF aan ku save garee ka bacdina waxaad tagtaa Facebook xayeysiis u sameey waxa ku iibin kartaa $1 ama $2 plannerskan waxa ka dhigi kartaa mid usbuucla ah mid bil ah mid sanadla ah ay waxaan hubaa dad badan oo waxaan raadinayaa inay jiraan marka hadii aad xayeysiin fiican u sameyso oo aad geliso Facebook iyo Instagram ki meelaha ku xayeysiiso dad badan baa ka iibsan doon marka waa idea isleeyahay lacag waa laga sameyn karaa laakiin ma wax fudud si aad u bilowdo marka waxa u baahan tahay inaad haysato account Canva ah oo aad garanayso sida Canva loo isticmaalo kadibna plannerska noocan hadaa sameysid waa fikrad aad ka heli kartid lacag fiican marka adiga kugu xirantahay oo market gareyso marka isku day qorshay lacag badan marka geliso kaliya waxa laga yaabaa inay ka gasho xayeysiinta Facebook iyo ku sameynaysid iyo Canva diyaar lacag ka bixinayso oo $12 marka fikradaas waa fikrad wanaagsan waxaan laga yaabaa inaad ka faa'iidi karto marka isku day fikradan labaad in la wadaago waxa weeye inaad dib u iibiso hostinada hadda website-kan anima idin dhahayo website dad u sameeya like way soo hoosgalayaan laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay inaad adigu sii create website reseller noqoto marka lacagna waa ka sameyn kartaa hostingka kaliya for example imika hadii aan tuso imika waxaan isticmaalaya account-ka Namejeebway qaybtii pricing-kan jooga hadii aad fiirsato imika saddexdan qayb buu leeyahay qaybtan koowaad wuxuu ku siinayaa $214 weeye hostingkiisa waxaana sameyn kartaa 25 account 25 account marka halkii account sanadkii wuxuu kugu joogaa adiga $8 sida caadiga waxa la siiyaa markay u jabanta $30 marka ma ka hadlayo way ka duwan tahay inaad shirkad u tagtaa tira website baa idin sameynaya oo xogaa weer aragtaa taas still waa ku dari kartaa laakiin tan ayada waxa fikradan in aad si iibiso hostingka marka hadii hostinada kan ugu jaban iminka $30 ilaa $20 baa la siiyaa 20 ba ka soo qaata hadii 20 la siiyo adiga 8 uu ku joogo waxa ka faa'iideysaa inta ku saaran $12 oo faa'iido marka kuwan wali way ka sii badan hadda kan marka iibsato maalgelinta ka badanayso $400 weeye ku maalgelinaysaa laakiin waxa ka heli doontaa $400 halkii account $4 ku jooga marka 100 account halkii account hada ku iibiso $15 xitaa waxa ku saaran lacag aad u badan oo waxa ka helaysaa ilaa $1500 marka tijaabiya kan web hosting kan waxa weeye idea isla waa laga faa'iideysan karaa soo kale hadii aad leedahay xirfadda web hosting ama web development waxa sameyn kartaa in website-dadan aad sameyso oo marka halkii website lacag yar oo jabanta ku sameysid lacag dheeraad ka sameyn kartid ama aad sameysato shirkad web development ka ah oo website-da waxa sameeya fikradan saddexaad ee la wadaago waxa la yiraahdaa in aad shirkadaha ka caawiso LinkedIn profile management-iga imika LinkedIn wuxuu noqday platform dadku ay soo baranayaan baahi badan loo qabo laakiin shirkadaheenu inta badan ma isticmaalaan LinkedIn iyaga Facebook iyo waxyaabaha si xoog saaraan marka hadii aad LinkedIn sameysato agency yar oo dadka ka caawiyo LinkedIn-ka postiyada iyo design-ada waxaan u sameeyay shirkadaha oo shirkadii baa ku tiraa $50 kala bishi ka qaadaya oo aad heshay ilaa 20 shirkad waxa way lacag fiican ba ka sameyn kartaa waana suuq banaan oo shirkadu intooda badan daa baarto LinkedIn-kooda active maaha marka waa idea-dan laga faa'iideysan karo marka muuqaalka saddexda idea in la wadaagay hadii muuqaalka ka heshay noo sheegay hadii ay jirto fikrad kale oo idan lacag laga sameyn karo comment inoogu soo qor. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.